وهاجاك داود يالنتاسي aan kaga soo noqon wareysiga xiisaha badan uu wariye Maxamed Cabdulle Nuur Timir oo khadka telefoonka ku wareysanayay wariye dhagacado oo ku sugan Cadaado hadaba aqalka sare ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saaray liiska uu fuutagaysa maamul goboleedyada iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka u dhaxeeya maamul goboleedyada sidoo kale dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulle Nuur Timir oo dhinacayga bidix taagan oo isha ku hayay maalmihii ugu dambeeyay khilaafkaasi ayaa ka faalan doona Maxamed ugu horeyn ku soo dhaw barnaamijka xogta maanta waxa bal warbixin nooga siisaa dhawaan maanta aqalka sare wuxuu soo saaray liis 5 gudi oo tagaya deegaanada maamul goboleedyada sidoo kale khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe bal khilaafkaasi gudidaasi bal waxyaabaha ay soo kordhin karaan bal warbixinaga si aad ayaad ma hasan tahay bidaanshe haddaan hore ugu galno qodobka muhiimka ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay isku dayaysaa inta aysan gaarin xiliyadii ay dhamaadeen madaxda maamul goboleedyada waqtigooda intuusan ka dhamaan ayay isku dayaysaa inay khilaafkan dhamayso dawladda federaalku beesha caalamka iyo dawladaha dariskaba way la socdaan khilaafkan u dhaxeeya ayaga dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe dawladda federaalku waxay sidoo kale ku mashquulsan tahay inay iibiso magacii iyo maaragtay arrimihii mansabkii siyaasadeed ee Soomaaliya ee geeska Afrika xilli maamul goboleedyada iyagii uu ka dhex jira khilaaf dawladda arintaas waxay ku tahay nabar dawladda dhaxan sheegaya halka maamul goboleedyadu ay maaragtay u arkaan fursadan maanta ay haystaan mid ay maaragtay ku sixi doonaan wado cusub oo hor leh oo iyaga iyo dawladda dhexe istijiidkooda ayay doonayaan inay meel ku soo xiraan taas waxa cadeyn kugu filan maamul goboleedyadu waxay soo saareen waxa la yiraahdo warmurtiyeed ayay soo saareen oo ay ku joojiyeen xiriirkii gobolada dawladda dhexe kadib madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu yeeray waxa weeye shir ugu yeeray magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyadu waa ay diideen shuruuday soo saareen shirkaas inay Muqdisho aadaan koow waxay dhaheen waxaan u baahanahay cid ka madax banaan anagay dawladda dhexe federaalka Soomaaliya oo ay dabcan ula jeedaan beesha caalamka iyo UN-ka oo dhexdhexaadin ka noqota goob joog noqoto wax ku wada hadlaan si hadhowdii ay dukumeenti uga helaan waa mid labaad arrin kale oo shaki galin ka dhawaxay ummadda Soomaaliyeed oo qodobka ay ku diideen inay madaxweynaha u tagaan waxa kamid ah waxay dhaheen waxaan u baahanahay meel amni ah taas oo shaki muujisay in madaxda maamul goboleedyadu ay dareemayaan in aysan isku haleyn karin magaalada Muqdisho oo ay qeexayaan Muqdisho aysan ahayn meel madax bannaan ay sida doonaan uga hadli karaan sida ka cad qodobka ah waxaan u baahanahay meel ammaan ah taas dad badan u fasirteen hadda ku soo haray oo aqalka sare uu isku tareegareeyay ama isku dayay in uu dawlad goboleedyada u diro gudiyadaas dhamaantood qolo walba waxa deegaan walba ama maamul walba waxa loo dirayay xubnihii aqalka sare isaga uga jiray yaa dad laga soo xulay Puntland oo kale oo iyadu hormuud u ah dawlad goboleedyada gudoomiyaha ama madaxweynaha golaha iskaashiga madaxweynaha Puntland ee haatan xilku ka sii dhamaanay Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa waxa loo soo diray oo aqalka sare u soo diray gudi uu hogaamiye u yahay senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo hore u ahaa madaxweynaha Puntland taas dad badan oo siyaasadda Puntland iyo tan Soomaaliya falanqeeya waxay u arkaan inay tirkis ciyaarayso ama siyaasad ay ciyaarayso dawladda dhexe bacdama sanadadii ama muddooyinka u dambeeyay aysan jirin wajhi nabadeed ama isfahan siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxweynaha haatan xilka haya Cabdulle Cali Gaas iyo Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo hore u ahaa madaxweynaha Puntland isku dhac siyaasadeed la tuhmay inuu ka dhex jiro dhanka galmudugna waa sidaas oo kale ninka la yiraahdo madaxweynihii hore galmudug Cabdi Qaybdiid ayaa isaguna gudoomiye u ah gudiga galmudug loo soo diray xaaf oo aad ogtahay maanta in cadaado looga qaaday ay xildhibaano sheegeen in cadaado xilka uga qaadeen oo hadda uu Soomaaliya ku sugan iyo ninka la yiraahdo Cabdi Qaybdiidna soo dhaweyn siyaasadeed oo fiican kama ay dhaxayn muddooyinka u dambeysay marka waxa la aaminsan yahay in gudiyadan soo diray oo madaxda federaalku ay soo direen bacdama maamul goboleedyadu ay diideen inay madaxweynaha Muqdisho uga yimaadaan inay dawladda federaalkuna iyadu ay qolo walba u dirtay ninka kursiga ku fadhiya nin ay ishayaan oo siyaasad ahaan ay isku diidan yihiin marka biyaha hoostooda la iska haraatinaya ayaa la is oran karaa marka qaybtood laakiin fursad kale jirta fursadda kale meesha ku jirta waxa weeye madaxdan horta wali aqalka maamul goboleedyadu kama soo hadlin warmurteedna kama soo saarin shirna kama ay qaban aqalkan sare xubnaha ay soo dirayaan taas waa qodob oo waxbay ka bedeli doontaa jihada siyaasadda hadda wax ku socda ama way diidi karaan oo soo dhaweyn karaan ama way diidi karaan waxa ma yeelan aan ku dhameeyo midda labaad
madaxda maamul goboleedada iyo aqalkan sare xubnaha ka imaanaya natiijo inay go'aan ka gaaraan si wax u jiraan iyagu hadda looma soo diray waxaa loo soo diray inay kurugal ka sameeyaan oo dhinac walba u tagaan oo ay soo weydiiyaan waxay dawladda federaalka ka tabanayaan hadhowdina ay aqalka sare reportkaasi muddo 10 cisho gudahooda ay ku soo celiyaan golaha aqalka sare fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho natiijadu waa maalinta balse de waxa suuragal xataa inay si kale wax ka gudbiyaan ay dhahaan waxa socdo dhan maamulka khalad kale marka si badan bay wax u socdaan laakiin guushu waxay jirtaa mar walba ay ku jirtaa sida isku fahmayaan aan ka dhex galo malasdihi kara xiligi dawlad goboleedyadu ay xiriirka u jireen dawladda dhexe federaalka Soomaaliya waxay doonayeen inay ku darsadaan kursiga 5 sano dambe ee soo socda inay qabtaan hadeer oo khilaafiyo soo kala dhex galana malasdihi kara khilaafkii markii hore rajadii ay qabeen madaxweynayaashu rajo ka duwan bay hadda qabaan bidashow markii aad rabtid laba qof in u garnaqdid waxa la dhageystaa qolo walba fikriga ay qabto ilaa haatan dawladda federaalka Soomaaliya ma ay dawlad goboleedyadu waxaas anaga nagu haysta haday oran lahayd dawladda federaalku maamul goboleedyada madaxdoodu waxay doonayaan inay xilka ku darsadaan oo nagu taageereen leeyihiin waxay ahaan lahayd issue kale laakiin waxaanu haydnaa hal ilaa haatan lahaya dhinac oo ah maamul goboleedyada dawladda federaalka ku eedeeyay fulin la'aan qaybsiga awoodaha dalka oo ay ku eedeeyeen dawladda federaalka in ay iyadu rabto in wadanka central government uu noqdo federalismka dawladdu iska indhatirayso dawladdu oo lagu eedeeyay faragelin maamulada dhexdooda inay lacag u dhiibto dawladdu iska may difaacin inta xaaladaas socotay dawladda wasaaradda maaliyadda xisaab celin ayay dalbat ayadoo khilaafkii la jiray already oo xaaladuna ay adkeyd marka dhab ahaantii waxa oran karnaa dawladda federaalka Soomaaliya iyada wax dan ah oo ugu jira markan ma jiraan in maamul goboleedyadu ay isku dhacaan sina dawladdu federaalku rajo way u leedahay waxay aaminsantahay madaxda maanta meesha fadhiya badankood mid doorasho u diyaar garoobayay mid hadda waqtigiisa waxay ka dhiman yihiin u badan yihiin marka waxay dawladda federaalku laga yaabaa inay ku haminayso sida dadka siyaasadda falanqeeya aaminsan yihiin in ay maaragtay kuraastaas maamul goboleedyada ay soo fariisan doonaan siyaasiyiin hor leh oo ay isla jaan qaadi doonaan arinta aqalka sare na waxaanu ka sigi doonaa bal wajiga hor leh oo ay ka soo bixi doonaan wararkay ugu dambeeyay aad ma santahay